الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين القائل صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد من قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث على قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة الحمد لله على نعمة الإسلام ilaahay islaamnimada nagu galladaystay baa mahadda iska leh majliskan waa majaalis aliimaan siduu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wassalaam iimaankuna u ziyaadaa u nuqsaamaa daacaddana uu ku ziyaadaa macaasida iyo qaflada iyo maalayacniga iimaanku waa ku nuqsaamaa xandalo radia allaahu canhu kaatib alwaxyi ayaa la kulmay abubakar markaasuu abubakar ku yidhi kayfa asbaxta yaa xandala markaasuu yidhi xandala naafaqa xandala yacni waxaan ka cabsanayaa buuhi nifaaq baan ka cabsanayaa axad kutaab alwaxyi weeyaan markii nebiga calayhi salaatu wassalaam jibriil uu waxyiga u keeno nazala bihi aruuxu alamiinu calaa qalbika litakuna min almundiriin bilisaanin carabiyin mubiin markii jibriil calayhi salaam uu nebiga qur-aanka iyo waxyiga u keeno raggii nebi maxamed hor fadhiyey ee qori jiray waxyiga nin ka mida buu ahaa maaragtani xandala waxauna ka cabsanayaa waa nifaaq markaasuu abubakar ku yidhi war maxaad leedahay wuxuu yidhi yaa abaabakar markii majliska nebigaan fadhinay calayhi salaatu wassalaam ee nebigu jannada iyo naarta uu nagala mudaakaroonaayo waxaabad moodaa jannada iyo naarta inaan u jeedno mar aliya markii adduunyadii iyo baylahdii iyo daycaadkii iyo danihii aan ku noqonnona wixii markii aan xasuusnayn inta badan waan halmaamnaa buu yidhi abubakar baa yidhi innaa lanalqaa maa talqaa hadal macnihiisu yahay arrintaa adigana aada la kulanto annakuna waan la kulannaa ee bal nebiga inoogii hanu sheegnay calayhi salaatu wassalaam markay rasuulka u yimaadeen ee u sheegeen xawaashoodii ayuu rasuulku yidhi aniga markaad lila joogtiin iimaankiinnu halka uu taagan yahay haddii mar walba iimaankiinnu halkaa taagnaan lahaa jidadka iyo firaashada korkooga ayay malaa'igtu nagu gacan qaadi lahayde walaakin saacatan wa saaca buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam saacadna waa cibaado weeyaan oo qofku markuu ilaahay caabudayana iimaanka u ziyaadaya idaa ra'aytum arajula yactaadu almasaajida fashhaduu lahu biliimaan buu rasuulku yidhi haddii aad aragtaan nin masaajidka mar walba xaggiisa u soo socdo waa shanta waqti bay culimmadu ku fasireene qofkaa iimaan u markhaati kaca buu rasuulku yidhi salaaddu iimaankay ziyaadinaysaa majliskan iimaanka ayuu ziyaadinayaa innahu yuxibu majaalis aliimaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam ninkii acraabigii ee kaga soo dacwooday rasuulka cabdillaahi bni rawaaxa ee